بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمر الدنيا والدين maanta sabtiya oo bishuna lixtahay waxa suumi dhamaan taageerayaashii rubcadaagi xisbiga kulmiye annagoo ay doorashadii qoodana soo dhigtay ayaan waxaan isugu nimid inaan dirdirgelino doorashada intaan ka qayb qaadan lahayn muraaqibiintii dadkii baxayay dhamaan ahaanteedba waxa dhamaanba xisbiga u diray axsaabta mucaaradka in badan bay lahayn doorashada la qaban maayo waa qabanayna waana imanayna diyaarna waa nahay waxaan leenahay carawa maantaba cariye ceebtu raacda badhinkii wax islaayo dadkoomi oo sacban leenahay soo diyaar garoob halkan waxa isugu yimid jaaliyad ballaaran oo jaaliyadii reer London oo taageerayaashii xisbiga kulmiye oo halkan ka arrinsanayay oo kaga wada hadlayay sidii ay u dardargelin lahaayeen xisbiga hawlihiisa u dardargelin lahaayeen oo ay doorashadiina iyadoo soo dhow dabeetana la kala war qaadanayay lagana arrinsanayay lagana tashanayay habkii xisbigu maanta uu inta ugu dambaysa uu dhammaystiri lahaa habkii dadka dibadda jooga ay u tagi lahaayeen gudihii oo ay uga qayb qaadan lahaayeen hawlaha gudaha ka socda hadday tahay muraaqibiinta hadday tahay abaabulka iyo dhammaanba arrimaha xisbiga ee gudaha ka socday oo diyaargarowga doorashooyinka kaabiga inagu soo haya sidii loogu diyaargaroobi lahaa waa xisbiga kulmiye taageerayaashiisii xoogganaa ilaa abid u taageerayaasha ahaa oo maanta u diyaara inay mar labaad ay maxay ahayd musharaxa cusub ay saaraan oo waxaa halkan fadhiya gobolka Maroodijeex gobolka Saaxil gobolka Togdheer gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo degmada Buuhoodle ayaa isugu yimid halkan sidii hawlaha xisbiga loogu dardargelin lahaa jaaliyad ka tirsan shiidaasan hore u soo sheegay ayaa halkan ku kulantay aqoon-yahankeedii xisbiyahankeedii waxgaradkeedii taasoo lagu guddoonsaday in hawlaha xisbiga kulmiye ee dibadda UK iyo dibadda iyo gudahaba si ballaaran looga hawlgalo hadday tahay dhaqaalaha xisbiga hadday tahay muraaqibiintii ka qayb geli lahayd xisbiga iyo hadday tahay taageerada guddiga kulmiye ee UK oo shaqo ballaaran ka haysta kulmiye xisbiga kulmiye wuxuu diyaar yahay doorashadii in la qabto inay guulaystaan waxaan ku soo gabagabeynaynaa calwa maantaba عليك عيب راحة الميدان واسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم halkan horta caawa waxay isugu yimid jaaliyadii reer Somaliland taageerayaasha xisbiga kulmiye meel kastay joogaan hadday guddiga fulinta tahay hadday tahay hawlwadeenadii hadday tahay laamihii waxaanu halkan kaga arrinsanayna waxa weeye sidii aan ugu diyaargalin lahayn doorashadii sanadkan dhacaysay haddana aan ugu diyaargaroobayno waxaanu leenahay إن شاء الله دير بنا هذه العيلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan caawa waxay isugu yimid dhammaan taageerayaashii iyo guddoomiyaashii guddiga fulinta sidii loo dardargelin lahaa xisbiga kulmiye waxaan doonaynaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan waxa la abaabulay iyo dadkii gudaha qaban lahaa ballantayadu haddaan kulmiyanahay ballantayadu waa shaqo ballantayadu waa shaqo waa slogan waa ballantayadu waa shaqo بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Axmed Daarood halkan maanta waxa isku yimid taageerayaasha xisbiga aqoonyahan hadday tahay dhalinyaro hadday tahay waayeel hadday tahay waxgar hadday tahay ayaa isku yimid oo muujinaya doorashadu waqtigeedii inay dhacayso oo dawladda giijinaysa doorashadii ma dhacayso ku taabila qaataan in waliba wuxuu isla hayana badka ha keeno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مهد إسلام تعالى هل كان ما أنتم أنا سكون من دمان وشويتي أسبقا كلمية أريكا إنجليزكا وضي دانيرو waxaanu halkaa mowqifkeegu yahay inaanu sidii markii hore mujaahidkii madaxweynaha loo saaray inaan haddana ka qayb galno aan mujaahidka labaadna kursiga saarno waxaanu ka midaysannahay arrin isku wada mida insha allahu waanaanu hadafkeega ku guulaysan doonaa dhammaan bulshooyinka somalilandna waxaan u rajaynayaa inay mujaahidka
iyakuna ay u muujiyaan inay kursiga siduu u fuuli lahaa ay ku taageeraan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.